Assalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada YouTube channelkeena. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha congenital abnormalities-ka ee ilmaha ku dhashaan mid ka mid ah. Taas oo loo yaqaano spina bifida, oo ah in laf-dhabarta qayb ka mid ah ay furan tahay oo ay bannaanka taalo. Xaaladdan waxa ay ka mid tahay xaaladaha ay ilmaha ku dhashaan. Maxaa keeni karo in dhallaanka uu ku dhashto xaaladdan? Si sax ah looma ogo waxyaabaha si rasmi u keeni karo, laakiin waxaa jiro waxyaabo lala xiriirinayo oo la aaminsan yahay in ay keeni karaan. Sida in hooyada uu ku yaraaday intii lagu jiray samaysanka uurjiifka, fitamiinka loo yaqaano vitamin B9 ama folic acid in uu ku yaraaday. Waxa ay ka mid tahay waxyaabaha lala xiriirinayo in ay keeni karto. Waxaa kaloo lala xiriirinayaa waxyaabo deegaanka la xiriiro in ay keeni karaan oo xaaladdan ay ku keeni karaan. Sidoo kale haddii hooyada ay leedahay wax balwad ah, ayadana way keeni kartaa. Sida sigaarka oo kale haddii hooyada ay isticmaasho way ku imaan kartaa xaaladdan. Waxa ay leedahay qaybo kala duwan oo midba midka kale uu ka halis badan yahay. Midda ugu halista badan waa mid neerfaha intiisa badan uu bannaanka yaalo, wax badanna uu ka furan yahay laf-dhabarta. Soo dhallaanka marka uu develop gareeyo xaaladdaas, waxaa lagu arkayaa in dareemaha lugaha ay eber yihiin ama paralyze inuu yahay. Saameynteeda ama halisteeda waxa ay ku xiran tahay inta ay laf-dhabarta furan tahay oo ay bannaanka taalo. Waayo waxa bannaanka u soo baxsan waa neerfihii sameynayay isku xirka jirka. Dhowr nooc oo kala duwan ayay leedahay. Midda ugu halista badan waa midaas qofka uu noqonayo ama dhallaanka uu noqonayo paralyze. Sidoo kale waxaa jirto qaybo kale oo ka fudud. Waxaa jirto midda ugu fudud waa mid aan la dareemeynin, laakiin dib dambe dhallaanka ka develop gareynayo ama markuu xoogaa weynaado la ogaanayo inay ciladaas haysato. Computer haddii hooyada ay isa saarto, dhakhtarka ma ogaan karaa in xaaladdan uurjiifkeeda uu qabo iyo in kale? Haa, wuu ogaan karaa. Dhakhtarka hadduu computer ku saaro wuu ogaan karaa in uurjiifkaaga uu xaaladdan qabo. Waayo waxa aan soo sheegnay in xaaladdan ay dhacdo inta lagu jiro samaysanka uurjiifka oo ah bilooyinka ugu horeeya ee uurka. Haddii hooyada ay bilaha dambe computer isa saarto, way ogaan kartaa, dhakhtarkana wuu u sheegi karaa in dhallaankeeda uu xaaladdan qabo. Calaamadaha lagu arki karo dhallaanka maxaa ka mid ah? Calaamada koowaad ee aan soo qaadanayno waa mid muuqata oo hooyada ay dareemi karto, waana in laf-dhabarta qayb ka mid ah ay bannaanka taalo. Calaamada kale ee lagu arki karo waxay tahay haddii safiir ay tahay ama zaid ay u daran tahay in paralyze uu noqdo ama lugaha uusan waxba ka dareemin dhallaankeeda. Haddii laakiin ay tahay qaybaha fudud ama kuwa fudud haddii ay tahay, hooyada waxay arkaysaa in ay ku adag tahay dareemaha lugaha inay xoogaa yar tahay ayay dareemaysaa. Haddaba waa maxay daawada saxda ah haddii dhallaanka lagu arko xaaladdan oo lagu daaweyn karo? Daawada ugu saxan waa in qalliin lagu sameeyo si loo xiro meesha furan. Dhabarka qaybta furan waa in la xiro, waana qalliinka ugu fudud. Xilliga ugu fiican ee la sameyn karo waa 72 saac ee ugu horeyso marka uu dhasho dhallaanka. Oo 72 saac intuu ka yar yahay ayaa ugu fiican oo la sameeyaa. Sidoo kale haddii ay jiraan xaalado ka dhashay arrintan, waa in ayagana la daaweeyo mar walbo. Sidee hooyada uga hortagi kartaa in uurjiifkeeda aysan ku imaanin xaaladdan iyo xaalado kale oo badan oo abnormality oo ilmaha ay ku dhashaan? Marar badan ayaan ka soo hadlay, laakiin waxa ugu muhiimsan oo hooyada ay uga hortagi karto waa inay qaadato fitamiinka xilliga uurka hooyooyinka ay qaataan ee folic acid loo yaqaano, inay fitamiinkaas hooyada isticmaasho. Fitamiinkan haddii uu ku yaraado hooyada, uurjiifkeedu wuxuu u nugul yahay waxyaabo badan. Waa inay isticmaasho gaar ahaan 3 bil ee ugu horeyso ama 4 bil ee ugu horeyso ee lagu jiro samaysanka uurjiifka. Waxyaabo badan ayuuna ka caawinayaa. Sidoo kale haddii xaaladdan uu develop gareeyo ama lagu arko dhallaanka, waa in si degdeg ah ama sida ugu dhaqsiyaha badan qalliin loogu raadiyo dhakhtar arrimahan ku takhasusay. Waayo mar walbo oo xilli hore qalliin lagu sameeyo waa mar walba oo daawadiisa ay dhowdahay. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad horey noola joogto waan kaaga mahadcelinayaa. Haddii aad ugu cusub tahayna soo dhawaaw. Mahadsanid.